السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijyadeeni taxanaha aan kaga hadlayna barnaamijyada diiniga iyo riyooyinkeena oo aan ku fasiri jirnay waxaan rabnaa insha Allah marka hore aan ku salino nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh allahuma salli wasallim ala muhammad wala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أنا كبلونه بسم الله قبيت وانكان رياض قف ما أركه إلا وقف آد ونصيب بدن كنا بشارة خير بدن أو ونكسن مرك كوباد حتى أركته أديكو حماسة كويسو riyada aad ku dhex aragto riyadaas waxay kugu bashaaranaysaa in aad maqli doontid khabar saciid ah oo wanaagsan oo aad ku farxi doontid insha Allah. labo, gabadha aan la qabin haddii aragto iyada oo iibsanayso qaxwo waa khabar wanaagsan oo aad u farax badan. haddii shakhsiga arko asigoo gaari kaxaynayo wuuna oynayaa riyadaas waa khabar wanaagsan maasha Allah. qofka hadduu arko isagoo ducaysanayo maasha Allah waa khabar aad iyo aad wanaagsan. ducaa waa khabar aad wanaagsan qofka hadduu arko. maasha Allah waxaa kaloo aan riyada kale oo qofka cabaayadaha dumarka leh haddii ku riyooto oo midabka leh cabaayadaha dumarka oo midabka leh haddii haweeneyda ku riyooto waxay kugu bishaaranaysaa khabar wanaagsan. haweeneyda riyada kale haweeneyda aragta qofka meydka ah isagoo qaxwo dalbanayo laakiin aan cabaynin waa khabar saciid ah oo wanaagsan. haddii laakiin uu cabayo riyadaas qofka meydka ah ma wanaagsana riyadaas waxay u badan tahay inay shar noqoto. gabadha aan la qabin haddii ay aragto xeebta iyadoo ku joogto waa khabar wanaagsan oo ay ku farxi doonto. gabadha aan la qabin haddii aragto iyadoo oo ku fadhido bacaad riyadaas waxay ugu bishaaranaysaa khabar wanaagsan. khabarkaas oo weliba ay aad ugu farxi doonto weliba mideeda kale waxayna ku muujinaysaa in ay reerkeeda iyo familkeeda ay aad iskugu farxi doonaan. wayna liibaan doontaa insha Allah. haddaad aragtid adigoo gaari la saaran adeerkaaga waxay ka dhigan tahay khabar wanaagsan inaad maqli doontid iyo farxad. riyada kale haweeneyda la qabo haddii aragto iyadoo xeebta joogto waxay muujinaysaa xasilooni iyo farxad iyo deganaan familkeeda iyada oo iskugu aadna liibaan badanna ay dareemi doonto. riyada kale hadday aragto gabadha aan la qabin diamond gabadhaas waxay maqli doontaa waxaan ka wadaa diamondka waxyaalaha ay la isku qurxiyo. gabadhaas haddii aragto gabadha aan la qabin haddii aragto waxay maqli doontaa khabar aad iyo aad u wanaagsan maasha Allah. riyada u dambeysa haddaad aragto waa qof kasto isagoo qodanayo dahab wuxuu maqli doonaa khabar wanaagsan aad iyo aad ugu farxi doona ayuu maqli doonaa insha Allah. waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iidi doontaan una sheer gareeya walaalahaaga muslimka ah. qofkii u baahan in riyooyin loo fasiro oo nala soo wadaagi doona insha Allah qaybta commentiga ayuu noo soo dhigi doonaa insha Allah. anigana waxaan isku dayi doonaa inta karankeena inaan qabano. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.